بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي كحرن channel YouTube ka aqoon kororso official إن شاء الله maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo xisaab yar oo kooban oo aad ka heli doontaan insha Allah xisaabta waxay tahay waxaa jiro circle ama wareegaas waxaa gudihiisa ku jiro ilaa 12 tiro 1 ilaa 12 12 kaas tiro waxaan u isticmaali doonaa calaamadaha marna waxaan isticmaali doonaa plus marna waxaan isticmaali doonaa minus tiradaas markaan isticmaalo balaaska waxaa soo bixi doonta 12 isku darkooda guud markaan tiro kale ku daro waxaa soo baxay 12 markaan isticmaalo minuskana waxaa soo bixi doono 6 oo labada tiro aan isku daray ayaan kala jari doonaa sidoo kale isla tirada markaan isticmaalo balaas waxaa soo bixi doono 13 marka waxaan ku arki doonaa insha Allah sabuurada qaabkan u xalinayno waxaan isticmaalaynaa calaamadda balaaska waxaa la rabaa inay soo baxdo 12 11 lagu daray 1 waxaa soo baxay 12 10 lagu daray 2 waa 12 9 lagu daray 3 12 8 lagu daray 4 12 7 lagu daray 5 12 6 lagu daray 6 waa 12 hadda waxaan isticmaalay plus waxa ii soo baxay dhamaan 12 11 waxaan ku daray 1 12 10 waxaan ku daray 2 12 9 lagu daray 3 12 8 lagu daray 4 12 7 lagu daray 5 12 6 lagu daray 6 12 waxaan filaynaa fahanteen qaybta koowaad oo noo soo baxday 12 markaan isku darnay tirooyinka anigoo isticmaalnay plus waxaan gudbaynaa qaybta kale oo minuska oo inoo soo bixi doonto insha Allah 6 markaan kala jarno tirooyinkan haddaan isku darnay hadda waxaan isticmaalay plus waxaan soo saaray 12 isla tiradan ayaa waxaan isticmaalayaa minus dan isticmaalo waxaan rabaa inay soo baxdo 6 tirooyinka haddaan isku daray ayaan kala jarayaa 6 ayay soo baxayo 12 ayaa waxaan ka jarayaa 6 12 6 ka jar waxaa soo baxaya 6 11 ayaa waxaan ka jarayaa 5 waxaa soo baxaya 6 si la mid ah 10 ayaa waxaan ka jarayaa 4 waxaa soo baxaya 6 9 ayaa waxaan ka jarayaa 3 waxaa soo baxaya 6 8 ayaa waxaan ka jarayaa 2 waxaa soo baxaya 6 7 ayaa waxaan ka jarayaa 1 waxaa soo baxaya 6 waa fahanteen ayaan filayaa markaan isticmaalay minuska inay soo baxday 6 markaan isticmaalay ku darna waxa ii soo baxay 12 waxaan filaynaa fahanteen labada qayb ka soo shaqeynay qaybtii minuska haduu dambeysay iyo qaybtii pluska ka horeysay waxaan gudbiyaa qayb kale oo plus ah oo markii tiradan isku darna ka soo bixi doonto 13 hore waxaa u soo aragteen laba qaybta koowaad markaan plus isticmaalay waxaa soo baxay 12 anoo tirooyinkan isku daray qaybta labaad markaan isticmaalay minus oo aan tirooyinkan kala jarna waxaa soo baxay 6 hadda waxaan isticmaalayaa insha Allah plus oo tirooyinkan dhamaan waxaa ka soo wada bixi doona 13 aan aragna qaabka aan shaqeynayno insha Allah number 1 haddii aan isticmaalno plus oo ku dar ah 12 lagu daray 1 waxaa soo baxay 13 sidoo kale 11 lagu daray 2 waxaa soo baxay 13 10 lagu daray 3 waxaa soo baxay 13 9 lagu daray 4 waxaa soo baxay 13 8 lagu daray 5 waxaa soo baxay 13 7 lagu daray 6 waxaa soo baxay 13 waxaan filayaa inaad fahanteen xisaabtan marna soo baxday 13 markaan isticmaalay plus mar soo baxday 6 markaan isticmaalay minus dhamaantood marna soo baxday 12 markaan isticmaalay plus haddii aad ka hesho xisaabtan commentiga hoos noogu reeb insha Allah taala xisaabtan iyo qaybo kale oo la mid ahna waan soo gelin doonaa insha Allah taala waxaan idin soo gudbinay anigoo ah Ustaad Cabdiwahaab Cabdi Maxamed assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu waxaan filaynaa fahanteen dhammaan saddexda qayb aan ka soo shaqeynay qaybta minuska qaybta pluska oo inoo soo kala baxeen 13 12 iyo marka la kala jaray inoo soo baxday 6 haddii channel ku cusub tahay saar subscribe si kuu soo gaaraan casharadan soo dhigno assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu